السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا شرفت يا قيمها يقايا بدن سود هذا صدق دقيقة لا كجرا أنت عيارت سو جلسو سود هذا مل والباء جوبتين ومسكينكي مسكين عاوي أضو براتين برنامج شطيلة مل والبدنيا دعلة ذاك جوبتين سود هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود هذا أصحابتي إذا قيمها يقايا بدن meel walba aad joogtiin waxaan leeyahay soo dhawaada allah ni sharfo ciyaarta derbiga ayaan rabaa inaan aadaado ilaah yiraahdo oo ay ka dhiman tahay 10 daqiiqo marka waxaan rabaa inaan inii boobsiyo shirkii ay yeesheen midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaare Roble waxa uu ku soo dhamaaday warbixinaya in kaga hayaado ilaah yiraahdo soo dhawaada allah ni sharfo meel walba aad joogtiin dani oo hanjabaad culus u jeediyay ciidanka dowladda Puntland wuxuuna ciidamadii ka goostay oo ku biiray BSF-ta uu hanjabay soo dhawaada Allah ni sharfo Puntland dani meeshii la rabay joogtaa dani meesha uu la rabay ayay joogtaa door mar la rabay hormar ay joogtaa haddii uu la rabay fooday dhibaatana meesha ugu dambeysay ayay joogtaa halkaas marka ay marayso xaalka warba iga baxay Allahu akbar soo dhawaada mar kale waa maskiinki mar kale waa gudoomiyihini mar kale waa ninka jecleedeen Allah in sharfo soo dhawaada guuliyo gobonimo waa warkiini iyo mar kale soo dhawaada soo dhawaada fiidowga sheergaray وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابته دمانت وين وذا السلام دمان وين كوذا قاضي هل قف لبا قفود يوسف فاهمين سلامتك قاضي وحن كقاضي دمان أصحابته أردن ميرو والباقي جوجان أيان كقاضي مركا سو dhawaada الله يشرفه مدوغا مشارحينتا warbixinaya in kaga haya haduu ilaa yiraahdo shirkii ra'iisul wasaare Roble iyo nimankaas ay yeesheen warbixinaya in kaga haya soo dhawaada Allah in sharfo meel walba joogtiin waxaan leeyahay soo dhawaada musharaxiinta wayna akhrinaya ilan fiidowga sheergareemaysiin madaxweyne farmaajo hadal ma looga baahna madaxweyne farmaajo hadal looma baahna ilaa hadda doorashooyinka sidii loogu talagalay ayay ku socdaan waxa hadal looga baahan yahay inuu arimahan xaarka uu soo dhaxgala ma waxan waa xaar adeer qashin iyo qurni brad waxaan madaxweynaha sharaftiisa ka weyn madaxweyne Soomaaliyeed waa uma imaan inuu dad qanciyo ama qabiilad uu ninkan wax gaarsiyo wuxuu yimid inuu dalka Soomaaliya samata bixiyo wuxuu yimid in Soomaaliya ay lugaheeda ku istaagto qarnimadeedii iyo dalkooda ay daafacdaan soo dhawaada Allah in sharfo Abshakur maxaa dhaar keenaya brother maxaa dhaar keenaya madaxweyne farmaajo inuu imaanayo adiga laftigaaga maxaa dhaar ba keenaya wargay si baan dhageyso waan rabaa inaan in la wadaago mudug musharaxiinta ayaa walaa weyn ka muujiyay daafur la'aanta ka jirta doorashooyinka dalka ka socoto sida ay raalli aan ka noqon doonin marnaba doorashooyinka dalka socda ra'iisul wasaaraha ayaa madaxda musharaxiinta ugu warbixiyay dadaaladii joogtada ahaa ee la xiriiray xoojinta hufnaanta doorashooyinka waxa uuna la wadaagay inuu faray guddiga doorashooyinka in ay waajibaadkooda gutaan si waafaqsan habraaca heshiiskii doorashooyinka halkaas markii marasa waxaa iga baxay ra'iisul wasaaraha ayaa isaga oo tixgelinaya
tabashooyinka la xiriira daafurka doorashooyinka ee ay muujiyeen midowga musharaxiinta dareenka shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka ayaa waxa uu ballan qaaday in golaha wadatashiga qaran uu yeelan doono kulan ku saabsan sidii wadajir ah looga shaqayn lahaa in doorashooyinka dalka ay ku dhacdo si hufan loona sixi lahaa qaladaadka jira. Haay ilaa hadda xaaladdu waa sidii loogu talagalay. duqa waa caafimaadkaaga yara u maleynaa caafimaadkaa kugu yar walaalkay macaani. aniga waa kaaga jawaabay doorashooyinkii waa kuwaa sawiraday doorashooyinka cabdiraxmaan cabdishakuur yaa ninka ka hooseeya oo sawirkiisa ra-iisul wasaaraha yaa kaloo ka sokeeya madaxweynihii hore ee Soomaaliya. marka anaga waxaan akhriyayna waa warmurtiyeedkii loo soo diray sheekh shariif sheekh axmed wadaadka iska masaakiinka. marka ra-iisul wasaaraha wuxuu sheegay ra-iisul wasaaraha in guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal uu u qabanayo sida kale shir foogga aragga ah loogana hadlayo daahfurnaanta doorashada iyadoo caddaynaya in lala xisaabtamayo cid kasta oo ku xadgudubta hufnaanka doorashada. wuxuuna ra-iisul wasaaraha ku ammaanay mar kale kulaha sida doorashadu ay u wadaan u dhabar adeegeen guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer. waxaan rabaa shariif sakiin xataa baydhabo ka soo cararay. odagaan kale oo madaxa cadka waa nagu cusub yahay. odagaas madaxa cadka aniga waa igu cusub yahay ma aqaano. shariif sakiin iyo sheekh shariif waa u jeeda ninka ka dambeeyana waa kii afayeenka sheeganayay. laakiin ninkan ra-iisul wasaaraha uu gacanta qaadayo ma fahmin mana aqaano. nimankan dad badan ay ku darsadeen dad badanna waa ka tageen. maalin walba nin cusub waa ku biiraya. marka ra-iisul wasaaraha wuxuu sheegay in doorashooyinka dalka ay si hufan leh u socdaan qaladaadka jirana uu kala hadli doono guddiga heer federaal iyo heer maamul goboleed. iyakana wuxuu sheegay inay isdejiyaan oo ka shaqeeyaan doorashooyinka dalka. wuxuuna ballan qaaday in guddiga doorashooyinka uu joogtayn doono kulamadooda. doorashooyinka dalkana way socdaan. aadan madoobe ayaa ka soo baxay koonfur galbeed maanta mar kale. warkayga si fiican u dhegeyso. koonfur galbeed ayuu kala soo baxay baarlamaanka Soomaaliya ayuu ka soo baxay aadan madoobe oo xildhibaan hore ahaa oo intaas sano ku fadhiyay. tii sheekh shariif uu joogay, tii xashiiq uu joogay, tii farmaajo uu joogay. haddana mar kale waa meeqo 12 sano hadda lagu daray 16 sano. aadan madoobe waa xildhibaan. warkayga si fiican u dhegeyso. maxaa kuu soo haray dalka doorashada ka socota cid walba waa ogtahay. warkayga si fiican u dhegeyso. wax ilaa haddana soo gaaray oo aadan madoobe ahayn ma hayno. warkayga si fiican u dhegeyso. waa mahadsantiin komediyadiina aadaan u tixgelinayaa. komediyada dadka qolkayga dhaway way baxayaanoo daahir cali sow iyo balwaanay aadayaan iyo maxamed carab iyo haddii qolkaana ay dan kugu jirto inaad i fiirsatid maxaa yeele waxyaabahan ka hadlayo oo waxyaaba adig ku anfacaya. caytanka jooji haddaa caytanto anima kula caytamayo blog dhab daasid ha gudaayo wareerka adeer meeqaa blog saare kulli waxay wadaan xagga macadhalida ugu daray iga qaad iyo hebelka qaad iyo waa dhamaata adeer. marka xaggaas toosu aade waa kala go'i doonaa hadduu ilaah yidhaah sidaa haddaba u kala go'sannahay oo xaaraan iyo xalaal aan u kala nahay. maxaa yeele ana xalaala laygu dhalay anna xaaraana lagugu dhahay. middaasaa keenaysa marka aabbaha tuugnimo leertaa mar walba tuugnimo leertaa adeer waxaan waa dhammaadeen 30 sanaan qabiil iyo qurun iyo xaaraan iyo balaayo taageeran iyo kufsi iyo balaayo iyo oo beesheeda bababajaba xabadaha inta ka socda waa guulaysanay furan hebel anay noo xiran tahay reer hebel intay u xiran reer hebel waxaas waa ka soo daalna adeer. hadda waxaan joognaa
سؤالي هنا وين كذا جوابي دونا لكن موضوعي أنا عن دمست موضوعي عن دمست رئيس الوزراء وهو ماذا علنيا قرآن الذي سي هذا الذي ومشك جدي رئيس الوزراء إلا هذا في عنتها لكن بيغير لجوه الجوجل دورشون كسب يعني وصعدا وحن وحبل لقى قبل كرين يا وقت لقى أقل من وحن وحبل لقى قبل كرين قد قد دورشون دورشة اللي هي طبعا وحكي قبلنا هدي وحلا قبلني حاوم لقى قبل كرين تواصل بلابطي وين أمانة حلبان الله دورت اللي ما علين كرو وين أمانة marka cid walba waa laga yaabaa iyadoo kuraasta la boobay in ninka la doortaa laga yaabaa oo farmaajo uu doorashayl marka adar iimaansada oo guryihiina jooga oo xaafadihiina iska jooga oo iimaansada warkayga si fiican u dhegeyso adar lifekan nabadii nolol iskale dadka nabadii nolol waxaa lagu seexiyaa hooyooyinka iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed ayaa loogu soo gudbiyaa wararkii ugu dambeeyay adiga dadkaaga beenta kugu soo gudbinaya oo roob la saan yiri iyo doorasho waa la istaajinaya iyo baba dadka kugu qancinaya aad warkayga si fiican u dhegeyso waxaa la rabaa waa tuurana insha Allah haduu Ilaahay riyo soo tuurana hadaa arno nala soo wadaaga qolka waardiye hebel tuura leh adiga soo dhig hebel tuur soo dhig bis adiga Maxamed Dionisow horu ka baxa ومن بين هذا عيتن كيسي سجع آخر الآذي وحوشي ضدك نمكاس كله هالتاجر كواس كله هالشير جري حرانته أدبريشير جريني سؤال لجاوي دينيا مركوا ما صنته قل كواردية قبل يويل بقفك عيتن صغير يصغر هي بالكتوب بس المران قبنا بنانك هدية عرب أمريكنا إن لو داقو شركة ما أنت السنة بدو كسر الماضي كلا ورقة شكل يا هيد واحد دبعتها واحد أنا نسامينا كما هالين رئيس الوزراء سجى دور الشغل اللي قربا إنه وضو السجى اللي قربا دور الشغل إنه وكحيو السجى اللي قربا هدي في عنتا يدين وناكل ما تبع السجى اللي قربا مدحوين فرماجو كاستور لصغر تبراد كيلا توريا كيوا تور هراو توري إيش وهي إيش كانوا بحثوا إيش كده يحيي أكو قبت أما صنطة أساس على الروا محاربة أمريكا ضدك الشرف له قيمة له قول كان جوجر وردية قف عايزة صغره ترتيب له توري أساس كتجي أنا أقدم من وهاي قولوا إنه ما إيمان كرو لايف كان أنا كم قدين كرو يا أنا هل كان أنا كعشية كان قرعة كان قدين إد إيمان كرت ماي إد كوس حد جود بكرت ماي أو كنا هالمرتور نيس سجنا استبيت كدار على سواد الله عنه سا دار على سوق آت براد دار على سوق آت دار على سوق ضد أباهن بالوانية ضد أباهن آد ملاس أدر أنا لايف كان أنا أنت قضية أنا كعشية أنا كقراعة فرماجن كتاجرية إن شاء الله هدو إلهي هذا وان أدم فيرنيا وطاروا إلى الصعود أدم فيرنيا هدو إلهي هذا مركو عن ربا إن لو ذا هدو إلهي هذا وما سمتهاي thank you وما سمتهاي keep going أيان thank you أنقذبنا مرك وهم مغلي جري أنا ما بونبونينو دبعته لكن دني بدلنا هذا هرمون اللي هذا قعنت كوايا الله يبارك دمن وعن ربعنا كل وذاقو إن شاء الله دو إلى إرادو واحد يريد لغاتها
sidaa markay xaaladu ugu noqotay waxaanu dooranay inaanu ka soo baxno difaaca oo xorriyaddiida ku waxaa weeraraysiinaa la yidhi ciidanka b s f ciidankan waa ciidankii puntland ciidanka daraawiishta puntland waa diideen 80 nin iyagoo ah hubkoodii iyo tighnikadoodii la tageen ciidankii b s t wax ka daafacayaan taas waxay ku tusay qadiyadda puntland ay ku tusay waxa meelahan oo kale qashinkaayo badbaado qarana inta timid oo askarigii qaran uu soo cararay maaha meesha adeer puntland meesha saas ma ah puntland ciidankeeda iyo dadkeeda way ogyihiin cidda dan ugu jirta maanta haddii la yidhaha reer puntland kala doorta dani iyo b s f doonanay maxaa yeelay hooyada gaalkacyo joogta iyo hooyada puntland iyo garowe joogta iyo boosaaso iyo waxay ku nool yihiin waa b s f waa ciidamada sida gaarka u tababaran ee la yidhaahdo puntland force ama ciidamada nis ee la dagaalama argaxiso bisee la dagaalama ayaa la yidhi hala weeraro ciidanuu soo aruuri meel walbuu ka soo aruuri ciidankan waa ciidankii boosaaso la keenay saaki waxayna ka codsanaynaa fidowga sheergaraysiin waa mahasanta fidowga sheergaray ininkoo mahasan wax yaran ku jira aniga wax yar laftigayga ciyaartan daawanaya liverpool iyo maxaa la chelsea man united maxaa la yidhaahdaa weeraruu yidhi aaduu yidhi waxay yidhahdeen adar weerari mayno umana soconno ciidankan weeraran yaa waay kuwii annagana daafacayay kuwii annaga garabkeena taagnaa miyaan weerari mayno tugtug dhalaata waana ka tageen ciidankii hanjabaad marka inuu hawada soo mariyo oo yidhaahdo waa ka shallayn doonaan wayna daniyow waxaa faraha kula jirta oo bartaad ku dhiman lahayd taladeyda qaado waa igu wallaahi waa igu billaahi waa igu tallaahi b f ta bartii ugu dambaysaa ku dhimanayso warkayga si faahan dhegeys nin isimadii iyo culimaudiinkii iyo odayaashii ka diiday wadahadal raba inuu puntland gumaysto war guddoomiyihii baarlamaanku gumaysta beeshuu ka soo jeeday markaasuu nin macmala keensaday oo guddoomiyihii baarlamaanka maalin ceeri warkayga si faahan dhegeyso haddii aadan ka daynin oo aadan faraha kala bixin oo ciidanka aad iska hor keenaysid oo xaaladihii ugu dambeeyey magaalada boosaasay ka taagantaha aan ognahay wallaahi meeshaa ku dhiman lahaydo bartaad ku dhiman lahaydo bartaa ku lagugu dillaano adeer shacabka puntland waxay taageersan yihiin ciidankooda waxay taageersan yihiin shacabkooda waxay taageersan yihiin deegaanadooda ciidankooda sida gaarka u tababaran ayay taageersan yihiin ciidanka b s f waa puntland force waa ciidanka ugu awoodda badan puntland waa ciidan 4,000 lagu sheegay oo si qaasa u tababaran oo maraykanka ay tababareen qabiil lama dagaalamaan qabiil ma soo aadaan furmaha kama soo baxaan 24 saac qoraxdii taagiin gaalgaal danina bruufu ku socdaa meesha rabuu aadaa mar axmedoobo aadaa biyu iska soo cabaa mar xafiisadaanu galaa qarru iska cunaa markayga si faahan dhegeyso waxaan leeyahay waad aragtay maanta jabkii kuugu dambeysay maantaad aragtay oo ciidankii militariga ee puntland ee daraawiishta puntland inay maanta ku biireen ciidankii b s f intaasaa tusaale kuugu filan ciidanka b s f ta waa ciidankii puntland oo dhanaa la jirta shacabka puntland oo dhanaa taageersan iyakaa kugu bannaan baxaya iyakaan adiga ku rabin iskaga soo tag soomaaliya madaxweyne u tartameen reer puntland nabadooda ha waaraane iskaga soo tag madaxweyney dooranayaani bal waxaad naga hesho bal waxaad naga hesho aad aragteed idinkoo maasa wallaahi inaanan been nii sheegeyn waa niman birta calaajiye nimanka b s f la yirahdo birta calaajiyaan birta waa dani bartuu ku dhiman lahaa haddana inuu ciidan yimaada weerara war nimankaa leedaha weerara ma yaqaana nimankay weerarayaan wallaahi ciidankan maanta ku biiray kuwaas caafimaadkooda ku jiri iyaka caafimaadkooda ku jiri sababtoo ciidan lala dagaalami kara ma ah waa ciidan tababar haysta waa ciidan awood leh waa ciidan hub iyo tignika isku filan saanadooda military garbay ku wataan warkayga si fiican dhegeyso daniyo boota weynow waa taas boosaaso wiig ay isaas u xiran tahay oo iskuulaadkii la xiray oo suuqyadii la xiray oo ciidanka soo fadhiyaan tallaabo qaad waa kaas adeer anaka dhan b s f haay
بروري زي فاهم دقيس أنا قدام بي اس اف أنا سوساس ما أنا عيدا كأنه حتى نقول مذقنا هنا وتاجرنا حبض مركب بلابط عيدا تاجرنا بي اس اف تلفت عيدا تاجرنا وقول مضوف لنا ما هي لو عيدا كوش عرفت بدنا بدله نشلا يمين كم عيار كر عيدا كبدله درجة لهاين كقدرنا مجالك كام الصقلان حروين اللي يهين دتك مدبان مجال مسو آذان بل وركي يزيف عن دقيس وحسك جوان بور الليلة كان يعضى كعنتا كباها كبرالي درجة الله مصين بقال الله مبدين أحمد دني مركو يمنع حالي يسكعوني مدحوين عبد الله يوسف واد درجي حلال وسي واد مغلسين الفرول حلال وسي واد أركسين سعيد دني سوين هالمال حتى مريم وما سنتي محايا لأنك هيو أوجه والله صوب بنيني مرو والله صوب بنيني مروان والله صوب بنيني برادا مر هديبا عيدن كي لو يمدو عيدن كي لكلا جبينايو oo saraakiishi sida daacad ugu shaqeynayay baahida la qaybsanay in la yiri iska imaada xilalka waa laga qaadaya in niikanaya oo hoteelada Puntland ka yeeradheerada oo lagu bedelay wax soconay maadan wax soconay qof bini aadan oo ku soconay abeeraati ma jirto warkayga si faahan dhigis Puntland dadkeeda iyo shacabkeeda iyo ciidankeeda BSF tay taageersan kale waa kane kuwan badbaado qaran la dagaalama haramcad iyo gorgor iyo danab ma la dagaalami karo waa ka awood badan yihiin waa ka tababar badan yihiin ciyaal dhiiqada cabo niman dhiiqada cabo aad nin marka biyo la siiyo in nimankan ma tartami karaan ciidanka Soomaaliya oo sida gaarka u tababar haramcad iyo gorgor iyo danab in la dagaalami karto ma la adeer marka reality-ga xaqii ka yihiin Puntland halkaas waxa u jooga BSF u joogta ciidan Mareykan tababaro hubkooda la siiyo diyaarado ku dagaalama saanad fiican leh saanadan dawlad ka qaadan isku dheelatiran buurleyda 24 saac qorraxda aad u jeediin buuraha ayay saareen in markay hilib cunaya oodka cunaya caanaha iska cabay caanaha geel iska dhuuqay inuu yiraahdo xilkii aan ka qaado war xilkaaga ma aha adeer gurigaaga joog 7 bariya ma joogtaa waa adiga booteynay ma aadid adeer BSF isbaraysin وانا برتا كل ما دنيو والله او بالله او طلع ومرات كشكين دونت ادي دونت markii garow lagu yimaado madaxtooyada laga qabsado inay tiray war hal jooji adiga hor istaaga karto ma dhacay kula madaniga dhahay hal weeraro ciidamadii oo saafkoos dhahay weerar miya leedahay man ciidankii cabsoonay ciidanku dani keensaday adkir mesh ciidankii dani كسو فرماها كسو كي بوصاصو كو كان اذكر نمك اما دني مرو ما انت واكبوتني شلوا بوتني ciidamadii amar ku sii maanta inay dagaalamaan ciidankii aad dagaalami karin ma amar waa la sii xabada bilaabali wararkayga si faham dhageys marka waxaan rabaa inaan diyaano inaan inii sheego waa faadiyaasiin oo kale oo بل في هذه إبل ديانو وبعد يصير ماشي ونجوا ينجوا الله أكبر هذا أنا شعب كصومالي إذا ما كنت الشيء نواي صومالي إذا ما بوتلة أبي استفكوا أنا كنت صناعي أو نيس يدوفان قرب إسكيلا يوم بابا جافير هذه وإذا ما بركوا فرماجي صنع والله ميدين دون بي استفت إيه دوفان إيه نيس وإذا ما سيد جارك أوتوبر بابا نمكاسي فادياسين ماشي ونجوا دنيا أكو غلطمين أديروا معانو عافماتك وفان عافماتك بوصاصة حبضي كبل لابت إيسك لا قروي دل أخوي ماني أنا عررتهم نيروبي إيه كسماي عاد مركز بوتي إذا ما دقال قاضي ور قاضي أدري الحل كديبس ماله السمدي أيو كدي دني إني أي وان قاطع أولي راني ما كان فرق كلبه لما كان أنا ملكو مشار مسيد توبر مسيد فراك قاعد لي مي أنا وكقاعد بابا تدع ديجان ويقبضي لحية طبعا اللي برا ماشي يقدر تبوردي فرباجة أقول تطميع وريج بعد عواتك كبحي عواتك دني كبحي إلى أن كنت أرتوي يابسي دني عواتك كبحي لحية طبعا كردي ماشي قطع لما كان إن الدياني هذا علق قاعد تدع ديجان عضت كي قبضيين لما كان هذا كتقلصين
oo aan meel walba ka xirin oo doorashooyinkii hore ilaa anaa madaxweynaha amanan baabi'in adeer xaaladdu ay u xumaanaysaa farmaajo rabaa in la tartamo 16 kursi ah boosaaso taal intaasoo intuu orday adiga moodi ninka inuu dan ku haya moodi ciidankan BSF ta dan ku hays ciidan sharaf leh ciidan xataa galmudug iyo inta isdagaalayeen iyo Puntland xataa waligood ka qayb galay ma waa ciidan Soomaalinimada ay ku weyntahay waa ciidan qarannimada ay ku weyntahay argagixisadan la dagaalamo baba taabiira thank you rejiga laga taageeraya ma sha Allah rejiga hada ciidan u baahantiin waa inii joogan gorgor yadana waa inii joogta hadii nimankii Tigreegi inuu ku soo carraan annaka inii joogna haduu Ilaahay yiraahdo garabkiina nahay rejiga garabkiina guulayst bal warkayga si fiican u dhageyso marka waxaan rabaa inaan iraado adeeryaal oo qeylada inta iska dheeftiin waa ma santahay ina diyaana iyo dani maxaa u kala jeceshaa tiri adeer ina diyaana inay Soomaalinimada ku weyntaa waa danina imaarad way saas u kala qaado marka saasee u kala qaado reer diyaano oo dhan waa niman dawladda Soomaaliya taageersan waa niman Soomaali weyn taageersan waa niman ay ka go'an tahay reer diyaano qadiyada iyo dawladnimada haddana dalka doorasho ka dhacday golahii deegaanka 3 deegaan ee lagu tartamay waxa ku guuleystay reer diyaana ku guuleystay asad diyaaniya ku guuleystay dani marka wuxuu ordayaa waa 16 kursi ee boosaaso taala inuu boobo macnaha hadhowda hadduu boob bilaabo ciidamadan waa soo galayaan waxay leeyihiin adeer boobka joojiya lamana ogola qab way wax doorasho dhici karta intaasu ka carrey marka wuxuu rabaa dani inuu ciidanka booliiska xoog ku qabsado kuwii asluubta uu qabsado kuwii militariga uu qabsado BS-tana uu gacanta ku dhigo taliyii booliiska waa bedelay kii asluubta waa bedelay wasiirkii amniga waa bedelay wixii oo dhan waa bedelay niman uu fikir ka soo dhaadhiciyay ayuu keenay 16 kursi ayaa boosaaso taala yaa baasha iskula weynaan siyaasadan waa ka weyntahay xil qaaday iyo waa ka weyntahay waxa taqaaniin ma xil qaaday meesha u fadhideen xil qaadaa meesha u fadhideen xil ma yaala meesha waxa yaala 16 kursi meesha taala 16 kaas rabaa inuu xaaraamaysto oo iska duubto oo ka soo saarto ku shalay soo saaranay marka waa inaan faantid oo ogaatid meeshan maxaa ka jira maxaa la isku haystaa ninkan BS tam duurka iskaga jirta BSF ta oo duurka iskaga jirta muxuu ku haystaa nimankan masaakiinta ee buurleyda ka dagaalamaya muxuu ku haystaa ciidankan Puntland daaficeedii ah ee Puntland force ah ee argixisada la dagaalama muxuu ku haystaa dadka dhan waa isweydiin maxaa yeelay reer diyaana waxay ugu guuleysteen maxaa la yiraahdaa 3 deegaan oo deegaano isaga iyo reer diyaano ay ku wada tartamayeen ayaa laga guuleystay marka hadii deegaanada laga guuleystay ninkan wuxuu haramale deegaanada kalena waa laga guuleysanaya sababtoo dadkii aan reer diyaana dadku jecel yihiin waad aragtay ciidankii militariga ciidanka daraawiishta Puntland inay maanta ku biireen BSF waad ogeedeen 80 iyo ka sheegay in la yiri weerar ay diideen inay weeraraan sababtoo aan ma weerar la wallahi weerareen iyo billahi taala madaxweyne farmaajo weerar haduu yiraahdo baba fiirade madaxweyne farmaajo haduu yiraahdo ciidanka nabad sugidda ciidanka sida gaarka u tababarniisa weerar waa diidi la sababtoo waa ciidankayga qaranka saadi sida marka wiil askariya oo Puntland la dhigi kara weerar ciidanka BSF sala dhigi kara waa diideen wayna ka dhaadhiciyeen wayna ka dhabeeyeen waxayna tageen furmahoodii BSF tii u tageen ay yiraahdeen adeer ana halkaan daafac ka galina inkaan daafacnaa daniyo sawd waxa sawd haddii marka dani oo isqaboojiyo oo yiraahdo kuraasan sidii loogu talgalay loo qaybsado oo beelihii iskale iyo aan ka wada sheegaysano keensada waa alxamdulillah hadduu diido ma boosaaso saasay ahaanay waa ka tagaa 16 kursi oo ka tagaa beeliha soo dooranaya reer diyaana maamulaya doorashooyinkii 16 kursi waa la soo saaraya 16 kursi oo farmaajo ka soo baxay hadduu kibirka badiyo oo qeylada sii badiyo haramcada la geena meesha haramcada waa joogtaa dee dhuusamareebay kuu joogtaa iyo cadaadi iyo deegaanadaas way dhaqaaqayaan way tagayaan daniya leeyahay adeer xabadda wada jooji waa nimanka odayaashaay nimanka aad ka carri jirto waaye haramcada adeer xabadda jooji dadka ka barakeene marka dani waa iswaalay wuxuu kala garan waayay qaabka wax loo cunayo qaabka kale balaayo lugta la galay deegaano isku furfuray
doorashooyin puntland ma gaari kartaa doorashooyinaa qabtay waya waa sacantahay puntland cid gaari karta male anaa laftigeena waa taageersanaa doorashooyin ka dhace xalaal u qaadahe wixii ka soo baxay xalaal u qaado maya xaaraan iyo musuqmaasuq iyo tugnimo oo inuu taleefano meelaha la taagnaa waad arkaysin ay idaas waraa aniga codsiyo hebel reebel ay tiraa lacagteed ceebti ka dhacdo adow saasay tahay waa laga guulaystay marka Siciid Diyaano waxaan leeyahay adar shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibadba waa in taageersanaay hiil iyo hoo waa in la garab taaganaay haram cad waa in diyaarsan tahay odagaan afka xabad ka galiy aduu diido 16 kuraas ee Boosaaso taala aduu diido runta loo sheego aduu runta diido dee waxa la iska waxaan sheeganaa waxba kama jiraan Puntland reer Puntland askare dani male waxaan leeyahay reer Puntland ilaahay nabad iyo barwaaqo Allah inuu ku dhameeyo waa mideey warta nabadii nolol islii bal warkaysa mideey xisbiga mideey iyo nabadii nolol waa isla meesh kala wadinaad waa mideey waa dadku mideynaya nabadii nolol waa ogtaadi marka intaasuu dani diidan yahay marka waxaan leeyahay saraakiisha Puntland ciidamada qalabka sida ee Puntland anoo wiil Soomaaliyeed ayaan baaqini soo diray haduu Ilaahay yiraahdo waxaan la hadlayaa ciidamada uu ku soo daldalay Boosaaso fariinteeda gaarsiiya talaadana markaan baaqan diraya baaqi ismada Puntland iyo waxaan dirayaa baaqi ciidamadii uu ku soo daldalay thank you fariinta ila qaada waan in bariya fariinta ila qaada waxaan rabaa inaan ciidamada Puntland aan fariin u furo dhammaan ciidamada qalabka sida ee Puntland warkayga si fiican u dhageysto daraawiishta ciidanka daraawiishta Puntland ciidanka asluubta Puntland ciidanka nabadgelyada wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha ismada Puntland waxaad haysatiin maanta nabad iyo barwaaqo haysatiin ilaahay dulmi raalli kama ah ilaahay waa ghafuur rahiim waana shadiid liqaab nabadda aad haysatiin Allah inii siyaadiyo nabadiina kama xum waliga waxaan dhigi jiray Puntland nabku waana anigu waa la yaqaana reer Puntland shacabka Puntland waa jecelahay qarax uma rabo dil uma rabo dagaal uma rabo xamra igu filan qarax iyo dil iyo dagaal iyo foodo xamra igu filan haddii aad muuqaalkayga in soo gaaro ha ogolaanina dulmiga uu dani wada ha ogolaanina siyaasiyiinta Puntland dulmiga ay wadaan ha ogolaanina ciidanka BSF ta waa ciidan sharaf leh waa ciidan waajibaadkii loo idmaday ama shaqadii magaca loogu daray ka soo baxay Puntland nabadeedana mas'uulka ah yaa ciidankaas la kala dirin yaa ciidankaas ciidan qabiil laga dhigin yaa ciidankaas ciidan uu shakhsi sameystay yaa laga dhigin way ka weyn tahay Puntland shakhsi waa ka weyn tahay Allah in sharfo anigu sharaf iyo ciisa inay hayaan reer Puntland aniga sharaf iyo ciisa inay macayal nabadii nolol isla shacabka Puntland oo dhan nabadii nolol isla nabadda aad haysatiin ku dagaalama nabadda aad haysatiin yaa ciidan war wallahi aan ogolaanayna ku dhahay in ciidanka hay'adda nabad sugidda Sodonka qaranka Soomaaliyeed farmaajo xataa in la weeraro inaan ka ogolaanay waa ciidankayga qaranka waa kuwa shabaabka habeenii maalin lagu qarxinayo iyo ko gurigan baaray la isku qarxinayo iyo ko laamiga madal la isku qarxinayo duurka afgooy iyo ceelasha biyaha suuq xoolaha daynayla kuwa qaraxyada iyo bumbooyinka iyo shabaab ku soo aruurinaya waa iyaga ciidan sharaf iyo ciise naga mudan waa ciidankeena hay'adda nabad sugidda Sodonka qaranka Soomaaliyeed ininkana waa ciidankeena Sodonka qaranka Soomaaliyeed waa ciidankii ugu awoodda badnaa Puntland Force ishaag maxaa la yiraahdaa waa BSF tii ciidankii nabad sugidda Puntland yaan la baabi'in yaan foodo lagu darin ciidankaasi ilaa dani intii la doortay shaqadoodii wateen oo maalin walba galgaal ay galayeen oo shabaab ay leelayeen oo shabaab ay soo qabanayeen hal laga daayo ismada Puntland odayaasha Puntland ayaan tan daniya afkeena gashto lacag si ma ayatinki Puntland lacag ka doorateen mustaqbalkii Puntland lacag ka doorateen ma nabadeyntii Puntland lacag ka doorateen inikoo fisqi iyo kufsi awalba u cadaalad farayn maanta waad haysateen cadaalad daradii haddayna dani qaban oo ciidanka uu leeyahay hal la weeraro haddii ciidankii xabad bilaabi lahayn maanta maxaa dhici lahaa waa la isku baabi'i lahaa 4,000 oo ciidan maalin xataa iyo bilooyin iyo sanado ciidan lagu soo afjari kara maaha waa ciidan awood badan
magaaladiiba kun hadday dhigo kun adar shaah la isku cabaa magaaladiiba kun hadday dhigaan kun gaalkacaya kun boosaaso kun garoowe kun maxay meesha kale ininkaa ii sheegin garaacdii meelahaasi oo ay kun dhigaan adar wallahi cid u tegi karta maaha marka dani ha laga qabto ummadda dani ha laga qabto ummadda dani ha laga qabto waa maasantiin insha allah doorashooyinkiina si fiican ayay noogu socdaan annaku ilaa hadda waa guulaysanay nabadii nolol ayaad guulaysatay adeer shalay doorashada dalka waa diidaniyada maanta ogolaada shalay axmedoobe waa soo dhaweyseen ogolaada caddaymaan haynaa in doorashooyinkii dalka ee jubbaland lagu qabtay ee foodada ahayd ee qashinkeed ee xaaraantahayd ee fartaagii baasta ay ku soo baxeen in aad madaxweyne aad tiri hambalyo maxaa diida markayna hambalyo nidhaahno miyaa afkana laka qabanayaa waa diray nabad iyo nolol waa diray baaq waa diray puntland waxaan leeyahay nabadda qaata puntland waxaan leeyahay cunugaana waxaan diraa daahir cali sawi iyo gabadhi waxay tahay waxaan rabaa in nabadda la qaato in dowladnimada la qaato anuu nabadan baaqan ay laada xabad ha bilaabato xabad rida bsfta dagaalantay mandhahan anag annaga waxaan leenahay ciidanka la rabo in la weeraro kuwa duulaanka lagu yahay waa bsf laakiin bsf weerar ma ah bsf waa joogaan waa sheegeen cidna weerar kuma niinay yidhaahdeen annagu ma rabna inaan dalkeena barakicino dadkaan waardeyna ma rabna inay naga qaxaan iyaku mar walba allah xafiday waxay ku taagiyiin nabadayn iyo barwaaqay ku taagiyiin way halkaasaan bsf uga soo gudbay doorashooyinka dalka ka dhacaya saha samil ay u socdaan qaar ka mida oo nabadii nolol ahaynaan soo baxaya annagu adeer ma diidanin kama hor imaanano kursigaas ma dhahano waa qalad cid walba oo doorashooyinka dalka ku soo baxda kuwii hore soo baxay kuwa hadda soo socdaba anigu waxaan leeyahay hambalyo soo dhowaada dalka doorasha ka socota doorashada ilaahay ha noo dhammeeyo waa mahadsantahay thank you waxaan rabaa in shacabka soomaaliyeed aan yidhaahdo dowladnimada iyo qarannimada gacanteena ku jirta dowladnimada iyo qarannimada gacanteena ku jirta yaana nin hotel hebel iska degan balwarkeyga si fiican u dhegeyso qoraal aqrinay nin hotel hebel hilibka ku cunay yuusan waqti kaa lumin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga khilaafaadka doorashooyinka heer federaal waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed sidaa iskula shaqayseen ood ku mahadsantihin sidaa iskula shaqayseen waa ku mahadsantihiin dalkan adeer cidda soo baxay haddii doorasho la istaajiyo hadday socoto hadday dhammaato cidda soo baxaysa waa la ogyahay oo meelay yaallaa meeluu kursigan yaallaa ninka ku fadhiyaa ku fadhin doona isagaa sii joogi doona isagaa madaxweyne noo ahaan doona hadduu ilaahay nafta baqari waxaan shacabka ku qanacsan maxaa yeelay shacabkaa ku qanacsan warkayga si fiican u dhegeyso shacabka soomaaliyeeda ku qanacsan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda soomaaliya waxaan rabaa saraakiisha amniga inaan u mahad celiyo guddiga doorashooyinka u mahad celiyo heer faradaad iyo heer maamul goboleed guddiga khilaafaadka doorashooyinka u mahad celiyo ra-iisul wasaare rooble aan u mahad celiyo kulligiin shaqo fiican aad haysiin allah in sharfo si nabada allah noogu dhammeeyo siiba waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ra-iisul wasaaraheena sharafta professor rooble oo si hasamila doorashooyinka u wada dhiirigeliyey kuraasta la isku haysto khilaafkooda hal xalga yiri guddiga doorashooyinka ra-iisul wasaare aadan kaaga mahad celinaya ra-iisul wasaare hadduu wax qabto waa loo mahad celiya soomaaliya ininka waxaad taqaaniin weligaa le qof haddaad ku dhegto maaha ra-iisul wasaaraha maanta anaa iniin huba shaqo fiican oo hayaa shaqooyinkii loo idmaday ayuu hayaa ra-iisul wasaaraha waxay ka mare ilow hal mar doorashooyinka soo dhammeen hal mar naga dhammeen maxaa yeelay sharaf iyo cise iyo karaamo ayaa meel u taala shaqadii loo imada waa ka soo baxa warkayga si fiican u dhegeyso marka waxaan rabaa in shacabka soomaaliyeed aan yidhahdo waa la guulaysto waan la guulaysan doonaa kheyr badan baa idinkaga tegey haddaad igu cusub tahay waxaan kaa codsanayaa youtubeka meesha kaluu saarayan subscribe saar gamalaalka furlegna saar waxaan rabaa inaan fiiriyo hadda subscribe-ka inta uu yahay waa u jeeda marka hadhow waa ku xisaabtamana hadhow waa ku xisaabtamana waxaan leenahay rooble ha guulaysto ra-iisul wasaare guulayso doorashooyinkana allah kula fududeeyo doorashooyinka dalka ka socda allah kula fududeeyo shaqo adag ayaa qabatay shaqo adag ayaa ku guulaysatay waana kaaga mahad celinaya
marka waxaan rabaa asxaabtayda youtube-ka waxaan ka codsanaa inaan youtube-ka meesha kale u saaran yahay waa mahadsanta dadka hore iigu saaray kama hadlaya dad badan aan ii saarin waxaan leeyahay allah ina sharfo waa guulaysanaynaa qarankeenna thank you kulli blogaa la saaraya maxay noo hayaan anaga wax nacaytamaya anaga marabna adeer kuwa aad ku qanacsan tahay aad meeshaan anaa ka qadiyay anaa ka cashay anaa ka quracay farmaajaan lagu taageeraya nabadii nololaa iskale nabadii nololaana dowlad soomaaliyeed aan raadinaynaa calankeenni iyo ciidankeenni ayaan raadinaynaa soomaaliya naga badan abtu waa mahadsanta marka asxaabay dadka aan saarin youtube-ka oo soomaalinimada ay ku weyn tahay dowladnimada ay ku weyn tahay qaranka soomaaliya jecel dowlad soomaaliya jecel keliya subscribe ay saar haddaad mucaarad tahay ha iga saarin maxaa yeelay lacagta waa xalaalaan rabaa inay ii noqoto beri ma lay rabo in la yidhahdo intaasoo mucaarada kuu saariya xaaraanay qaar kaa noqdeen ma rabo lacagta yarta aan ka helo waxaan rabaa inaan si nadiif u cuno hadduu ilaah yidhahdo guul badan baa idinkaga tegey kheyr badan baa idinkaga tegey ismaqal dambe oo xiise leh insha allah hadduu ilaah yidhahdo wixii ka soo kordho waa in la wadaagaya mar labaad mar saddexaad waxaan kaa codsanayaa ha hilmaamin waxaan kusoo gabagabeynayaa adigoo youtube-ka subscribe ii saaray adigoo ii sheer gareeyey waana kaaga mahad celinayaan shaqadaasi ilaahay ayaa kuu jeeda mahaddaasna ilaahay ayaa ku siin doona waxaan kaa codsanayaa in dhammaantiin youtube-ka meesha kaluu saaran yahay subscribe ii saar gambareelka furo leeg saar la wadaag asxaabtaada kheyr badan baa idinkaga tegay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi thank you